marmarka qaarkood warbaahinta caalamku xooga kaliya ma saarto dhacdooyinka dhibaatooyinka maalinlaha ay dunida ka dhaca iyo wararka kaliya ee dhinaca xiisadaha siyaasadeed iyo waliba waxyaalaha kale ee dawladaha kale u hagaaga laakiin marar badan waxa xoog la saaraa arrimaha sayniska technology-ga arrimaha dhaqaalaha iyo arrimo kale oo hortabin iyo aqoon guud waxaana kamid ah waxyaalo badan oo lagu ogaado taasi tusaale ahaan waxaa jira wargeysyo waaweyn oo kaliya qaada dhiga wararka sayniska iyo cilmiga iyo deegaanka haday tahay duurjoogta haday tahay noolaha haday tahay xanuunada haday tahay cuntooyinka iyo waliba cimilooyinka intaasoo arrimood oo dhan marar badan waxay horfar media isku daydaa inay isku keento isla markaana ay ku soo koobno barteenan iyo wararkeena joogtada ah 7 casho maalin kasta 4 saac 3 jeer iyo waliba duliska barnaamijyada ah ee saddexda ay maalmaha arbacada sabtida iyo xadda iyaguna baxa barnaamijka waxa xiiso leh iyo labada barnaamij ee dabcan xulashada dunida sidoo kale waxa sii dheer barnaamijka dhulmar oo marar badan aynu horkeeno qaar kamid ah dadyoga markaas muhiimka inuu aragno wareysyadooda iyo marar kale barnaamijyo kale oo baxthi noqon karaya sida barnaamijkeena badda ka sameynay ay sidoo kale ka sameynay magaalada Muqdisho iyo meelo kale hagaag tasaadaradeed barnaamijkan daawashana qiimaha leh waxaan ku eeganaa waxyaalaha loo yaqaano diin ama xayawaanka loo yaqaano diinka badda diin badeedka ayaa waxa uu yahay xayawaanada adduunka loogu baahida badan yahay inay noolaadaan sababta saas loo leeyahay waxa la aaminsan yahay in xayawaanka noloshoodu uu qayb ka yahay badqabka deegaanka gaar ahaan badda ama bay'ada ay ku nool yihiin marar badanna waxa la aaminsan yahay in qaarkood laga helo waxyaalo laga doonto oo ay kamid tahay dheecaamo marar qaarkood loo baahan yahay hase yeeshee waxa arintaasi ay timid kadib markii isagu muhiimad gaar ah uu yeeshay waxa lagu go'aamiyay in hay'ad dhan loo sameeyo hay'adaasoo diin badeedka la socota dhaqdhaqaaqiisa gaar ahaan noocyo kamid ah oo la sheegay in ay si yaraanayaan muhiimna u yihiin noolaha badda iyo waliba waxyaalo macaadina oo badda laga helo iyo nadaafadeeda sidaa daraadeed waxay warbixin ay soo saartay hay'adda duurjoogta ee qarintaas qaabilsan ay sheegeen in diin ka tagay ama ka hayaamay oo ka jilaabtay dalka Turkiga xeebihiisa uu gaaray dalka Tunisia kadib markii uu sii socday 296 maalmood noocyada diin badeedka ee loo yaqaan kareta iyo noocyo kale oo dhowr ah ayaa waxa loo sameeyay wax lagu tilmaamay badbaado gaar ah in la socdo waxa kamid ah noocyada kareta nooc loo yaqaan Chelonia iyo Midas iyo sidoo kale Tronix iyo Trugus waxaana loola jeedaa ayaa leeyahay in 30 sanadood ugu dambeeyay ilgaar lagu hayay aagaga ay ku dhaqan yihiin ay koobnaadeen gaar ahaan badaha Mediterranean-ka iyo badda markaasi Atlantic qaybo kamid ah iyo sidoo kale badda Black Sea hayaankan ayaa la sheegay in lagu ogaaday kadib markii goorsii horeysay kooxda markaasi ku nool qaybtaas ee diin badeedka loo xilsaaray urur ay madax ka tahay Amina Erdogan marwada uu qabo madaxweynaha dalka Turkiga kuwaasoo go'aamiyay in xayawaan kasta oo noocan aan ka hadalay ah lagu xiro GPS yar ama waxa loo yaqaan markaasi koorta casriga ah oo loola jeedo in lagu dhajiyo kadibna meel kasta u maray la ogaado marka ay guuraan meel ka guuraan sida meelaha kale iyo inta jidka sii socdaan looga ilaaliyo xayawaanada kale halista ah iyo hadii ay xanuunsadaan in gargaar caafimaad loo fidiyo iyo badbaadaba loola socdo dhaqaatiirtu waxay aaminsan yihiin gaar ahaan waxda la yiraahdo Patera Special Environmental Protection Area waxay aaminsan yihiin in hadii aan arintaasi la sameynin ay dabar go'il hayeen xayawaankan oo badda macna weyn ugu fadhiya waxa uu gaaray xibaha Tunisia isagoo nabad qaba ayaa leeyahay xubintan tagtay halkaas tagtayna waxa loo bixiyay Lesia magacana waa magac saynis ama magac sayniseed weey 300 oo maalmood ka dhawaad ayuuna sii ruqansanayay isagoo markaas bad qaba caafimaadkiisuna uu fiican yahay waxaana la sheegay in marba goobta uu marayo lagu ogaado Lesia waxa la sheegay in uu yahay diinkii ugu socdaalka dheeraa waxaana la sheegay inuu aag bedeshay kadib markii la sameeyay taxliil dheeraad iyo baaritaan waxa la yiri badda ayaa ku dheeraatay inta badan qaybaha baddu ay ka dheer tahay ma jecla meelaha baddu u gaaban tahay uu aag bedeshay iyadoo waxa hagayana ay yihiin baa la leeyahay dabciga Ilaahay uu sameeyay Lesia da'diisa waxa lagu tilmaamay inuu u dhaxeeyo 25 ilaa 30 sanadood oo sida ay sheegeen khabaradu isla qadiyad la xidhiidha oo isla sayniskaana waxa iyadana lagu ogaaday oo la sheegay in iyadana arin saynisyahan ay soo saareen waxay sheegeen in libax badeedkii ugu badnaa ee dunidu uu 9 milyan oo sanadood ka hor u geeriyooday waxay sheegeen ama ay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyeen xubnuhu in 9 milyan oo sanadood ka hor ay dhinteen 90% dayaxa markaas wax loo yaqaanay bahalka badda ku jira libax badeedka la yiraahdo
dhakhaatiirtan ayaguna saynis yahanadan caanka ah oo dhinaca deegaanka iyo dhinaca jaamacadda Yale ka tirsan dalka Mareykanka waxay sheegeen in aysan garanaynin xasuuqaasi waagaasi waxa geystay dad badan ayaase waxay mar walba ay ku tilmaan mas'ala khilaafiya inta adduunku jiray inuu horta intaasi ay gaadho hase yeeshee saynis yahanada qaarkood waxay aaminsan balaayiin sanadood oo adduunku uu jiray waxay yiraahdeen in aynu weyno in ka badan inta aynu haysanno maanta ee libaxbadeeda 110 laab ama 10 jibaar waa arrin u baahan in baaritaan lagu sameeyo ayay tiri saynis yahanada la yiraahdo Elizabeth Siebert oo iyadu si gaara ugu qaabilsan waxa loo yaqaan intrafel in Earth oo ama in ay ogaato marxaladihii dhulka ee uu soo maray